dhammaan waad salaamantihiin asxaabta ku xiran kanaalka daruuraha. Inta aan gudagelin mowduuceena, fadlan subscribe saar boggeena YouTube, like iyo share-na si barnaamijyada aan soo dhigno barteena Facebook si muuqaaladeena ay u daawadaan dad fara badan. Golaha deegaanka magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga ayaa horaantii bishan waxa ay u codeeyeen in nin Soomaali Talyaani ahaa ay ugu magac daraan maxaddo ama boosteejo tareenada dhulka hoostiisa mara oo laga dhisayo magaalada Roma. Ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Giorgio Marincola, waxaana uu qayb ka ahaa wax iska caabintii iyo halgankii Talyaaniga. Giorgio Marincola ayaa la dilay isagoo 21 jir ah, waxaana toogtay ciidamadii Naazigii Jarmalka oo rasaas ku furay meel isgoys ahayd 4 May 1945. Waqtigaas oo ku aadanayd 2 maalin kadib markii la hareereeyay askartii Jarmalka ee Talyaaniga ku sugnayd, sidaana uu ku dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, La Seconda Guerra Mondiale. 1953 oo ku aadanayd 8 sano kadib dilkii Giorgio Marincola, waxaa Talyaanigu ay garwaaqsadeen kaalintii Giorgio Marincola uu ka qaatay halgankii wax iska caabinta, iyagoo u hibeeyay bilad sharafta ugu sarreysa ciidanka militariga Talyaaniga ee Medaglia d'Oro al Valor Militare. Boosteejada metroga C ee magaalada Roma oo uu haatan dhismaheedu socdo ayaa waxaa markii hore uu qorshuhu ahaa in loogu magac daro dhacdadii Amba Aradam ama dagaalkii Enderta, oo ahaa dagaal ay Talyaanigu ku galeen Itoobiya, kaasoo dhacay sanadkii 1936. waxaana dagaalkaasi ciidamadii gumaystihii Talyaanigu ay u adeegsadeen gaaska mustarka, kaas oo ah gaas leh midabka huruudka ah oo sii deynaya qiiq sida basasha ama tuunta u carfaya, iyadoo qofkii ay jirkiisa taabato kiimikadan uu gubanayo. Waxaa kale uu gaaskani sababaa matag, qufac, shuban, neefqabatin iyo indhabeel, waana gaas sun ah oo sababa dhimasho iyo kansar. Sababta keentay in magaca laga bedelo boosteejada Amba Aradam laguna bedelo magaca wiilkii Soomaali Talyaaniga ahaa ee Giorgio Marincola ayaa waxay ahayd kadib markii bishii Juun ee lasoo dhaafay la bilaabay olole daba socday Black Lives Matter, nafta dadka madow qiimo ayay leedahay, oo ka dhashay dilkii ninkii madowga Mareykanka ahaa ee George Floyd ee ku dhintay gacanta booliska Mareykanka. Ololaha halgamaagii madowga ahaa ee Giorgio Marincola waxaa bilaabay journalistaha Massimiliano Coccia, gabadha qoraaga Soomaali Talyaaniga ah ee Dottoressa Ijaaba Sheegow, iyo sidoo kale qoraaga Cantar Marincola oo ah wiil uu adeer u ahaa Giorgio Marincola. Markii hore waxaa kooxdan u ololeynaysay in la xusuusto geesigii Giorgio Marincola ay boor weyn ku dhajiyeen halka uu ka socdo dhismaha tareenka dhulka hoostiisa mara ee magaalada Roma, waxaana ay boorkaasi ku qoreen in halkii dulmigii Talyaanigu ka geystay Itoobiya loogu magac dari lahaa boosteejadan cusub ay ka mudan tahay in lagu bedelo magaca Giorgio Marincola oo naftiisii qaaliga ahayd ku waayey isagoo u ololeynayay in Talyaanigu iska rogo xeryadii gumaysigii Jarmalka ee dagaalkii labaad ee adduunka. Halgamaagii ugu horreeyay ee Talyaani madow ahaa Giorgio Marincola waxa uu ku dhashay degmada Mahaday ee haatan ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sanadkii 1923. waqtigii gumaysigana ka mid ahayd deegaanadii loogu yeeri jiray Italian Somaliland. waxaa Giorgio Marincola iska dhalay askari Talyaani ahaa oo ka soo jeeday gobolka Calabria iyo hooyo Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Ashkiro Xasan. Sidoo kale Giorgio wuxuu ahaa xubin firfircoon oo kaalin muuqata ka qaatay halgankii wax iska caabintii Talyaaniga. Waqtigaas oo ahayd xilli ay askar yar oo Talyaani ah qirteen inay carruur ku soo dhaleen dibadaha, ayaa misna askarigii Talyaaniga ahaa ee Giuseppe Marincola waxa uu si toos ah u qirtay in Ashkiro Xasan ay u dhashay 2 carruur ah, Giorgio iyo Isabella, waxaana kadib uu labadiisii carruurta ahayd keensaday Talyaaniga si uu u korsado. Xilligaasna Giorgio Marincola wuxuu jiray 3 sano. Askarigii Talyaaniga ahaa ee Giuseppe Marincola wuxuu guursaday xaas labaad oo ka soo jeeday gobolka Sardinia ee Talyaaniga, waxaana ay u dhashay 2 carruur ah, kuwaas oo la kala oran jiray Rita Marincola iyo Ivan Marincola. waxaana Giorgio iyo Isabella ay la koreen walaalahooda cusub, iyadoo dhammaan qoyska Marincola ay deganayeen xaafadda Casa di Alberta ee magaalada Roma. Intaa kadib, Isabella waxay noqotay atariisho,
iyadoo qayb ka ahayd filinkii bariiskii qaraara Rizzo Amaro ee la sii daayay 1949, halka Giorgio Marincola uu isna ku fiicnaaday dhanka waxbarashada isagoo ka dhex muuqday iskuulkiisii Roma, waxaana kadib uu noqday arday bartay caafimaadka. Intii uu waxbarashada ku jiray, Giorgio Marincola waxaa saameeyay fikirkii looga soo horjeeday nidaamkii fashistaha Talyaaniga, isagoo iska diiwaan geliyay liiskii xubnihii ka soo horjeeday fashistaha 1949 xilli dalkii uu ka soo jeeday ee Soomaaliyana uu weli ku jiray gacanta gumeystihii Talyaaniga. Sidoo kale halgamaa Giorgio Marincola waxa uu ku biiray ciidankii dulmidiidka Talyaaniga, waxaana uu ahaa geesi ku booday baarashood kadibna dalaq yiri xeradii cadowgii Naaziga Jarmalka, iyadoo halkaasina ay ciidankii Jarmalku ku qabteen isagoo dhaawac ah. Waxaa askartii Jarmalku ay Giorgio Marincola horkeeneen raadiyaha si uu toos ula hadlo kacdoon wadayaasha dhiggiisa ah ee ku hadla luqadda Talyaaniga. Hase yeeshee markii uu hadalka bilaabay ayaa waxa uu Giorgio yiri, dhulka hooyo haddii aad maqasho waa inay xorriyad iyo cadaalad ku noolaadaan dadka dunida ku nool, waana midaas sababta aan ula dagaalamayo dulmi wadayaasha. Markii uu intaas yiri ayaa la jaray tabintii raadiyaha, waxaana kadib la maqlay codka garaac iyo jirdil lagu sameeyay Giorgio Marincola. waxyaabo badan ayay shacabka Talyaanigu haatan doonayaan in la bedelo, sida taariikhihii madoobaa ee gumeystihii Talyaanigu ka geystay qaaradda Afrika, iyo taalooyin loo dhisay shakhsiyaad Talyaani ah oo leh taariikh xun ama dambiyo ka galay caalamka, oo uu ka mid yahay Indro Montanelli oo ahaa journalist difaaci jiray gumeystihii Talyaaniga isla markaana guursaday gabar 12 jir Eritrean ahayd intii uu ka tirsanaa ciidankii gumeystihii Talyaaniga 1930-kii. ninkan oo taaladiisu ilaa maanta ay ka taagan tahay magaalada Milano. Inkastoo 30 sannadood oo colaado ah ay tirtireen intii badneed taariikhdii hore ee ka dhaxaysay Talyaaniga iyo Soomaaliya, ayaa misna waxaa weli jira ereyo badan oo Talyaani ah oo ku dambeeya afka Soomaaliga. Dhanka kale, Soomaali badan ayaa iyaguna saameyn weyn ku reebay gudaha Talyaaniga, hadday ahaan lahayd dhanka suugaanta, filimada iyo cayaaraha, waxaana dadka ka mid ah Cristina Cali Faarax oo ah qoraa caan ah oo ay iska dhaleen aabba Soomaali ah iyo hooyo Talyaani ah, iyadoo ku dhalatay magaalada Verona ee waddanka Talyaaniga. Amin Nur oo ah jilaa iyo soo saare, Zahra Bani oo iyana aabaheed uu Talyaani yahay hooyadeedna Soomaali tahay, kuna dhalatay Muqdisho sanadkii 1979. Zahra Bani waxay magaalada Torino ee Talyaaniga timid sanadkii 1989, waxaana ay Talyaaniga uga qayb gashay cayaarihii warantuurka ee Yurub sanadihii 2005, 2007 iyo 2008. Sidoo kale waxaa jira Cumar Degan oo ah naqshadeeye guryaha oo aad looga yaqaano Talyaaniga iyo meelo badan oo qaaradda Afrika ah, kaas oo ku dhashay Torino. Isku soo wada duubo, boosteejadan cusub ee loogu magac daray Giorgio Marincola waxa ay macno weyn ugu fadhisaa Soomaalidii hore ee Talyaaniga oo loo yaqaano mezzolira ama liiro barkeed, oo loola jeedo lacagtii hore ee liirada Talyaaniga barkeed, taasoo laga wado in haddii ay damcaan inay wax baxsadaan ay liirada u qaybinayaan labada dal ee ay ka soo jeedaan ee Soomaaliya iyo Talyaaniga. Halka Soomaalida cusub ee Talyaaniga soo gashay sanadihii u dambeeyana loogu yeero magaca Titanic, oo macnaheedu yahay safarkii dhibaatada badnaa ee ay u soo mareen si ay Talyaaniga u soo gaaraan, iyagoo soo jeexay saxaraha ilaa badda Mediterranean-ka, jidkaas oo ay qaar badan naftoodii ku waayeen. daruuraha